xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo shir jireed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa dawladda Soomaaliya ku eedeeyay dib u dhigista markii saddexaad maxkamadda ICJ ay dib u dhigtay dacwadda dhanka badda ee ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya in saddex mar maxkamadda hal dhinac ay dib ugu dhigto dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayuu nasiib darro ku tilmaamay xasan sheekh maxamuud wuxuuna soo hadal qaaday in halkii dawladdiisu ay ugu tagtay muranka dhanka badda Soomaaliya iyo Kenya ay weli taalo xasan sheekh ayaa hoggaanka dawladda ku dhaliilay in aysan weli shacabka Soomaaliyeed u faahfaahin qadiyadda dhanka badda waxaana uu ka dhawaajiyay in xilalkii ay ka tageen kuwana laga qaaday mas'uuliyiintii galdacwadeedka ICJ dawladda Soomaaliya wakiilka uga ahaa maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego la wadaago 4 sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayay qadiyadda badda weli taagan tahay 4 sano ku dhawaad meeshii aan uga tagnay taagan tahay 3 jeer ayaa qadiyadda badda dib loo dhigay dawladdeena mar walba waxay ku noo sheegtaa in ay diidaneed in dib loo dhigo laakiin wax cadeynaayo dawladdeenu in ay diidaneed marna dawladdu muxuu ahay shacabkana lama wadaagin golayaasha muxuu ahay inay la wadaagtay ay sida golaha wasiirada iyo golaha maxaan ku yiraahdaa baarlamaanka lama wadaagin laakiin afkana looga sheegaa leeyahay anagu waa diidaneed dacwadda waxaa mas'uul ka ahay dad Soomaaliyeed hogaaminayay dacwadda lawyer caalami ah oo Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed oo qiimo badan ah ayaa hogaaminaysay dacwadeena waa la wada yaqaanaa dadku way yaqaanaan wajigeedii muuqaalkeedii adkeenta munasharma xeer ilaaliyaheeni guud ee biriga joogay oo aan hadda joogin munasharman hadda ma joogto kamid ma ah kooxdii dacwada waday xeer ilaaliyaheeni guud ayaa asna kamid ahay dadkii dawladda sida saddex qofood dawladdu saartay 2 qofood oo dhinaca sharciga awgiis loogu saaray iyo qof dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda awgeed loogu saaray xeer ilaaliyaha guud kamid ahay oo kamid ahaa tiimka oo dadka Soomaaliyeedna u hadli jiray waad ogtihiin maxkamadda muga laga soo bax banaankeedu ka hadli jiray dalka mugu ku soo noqdo seminar iyo workshop iyo qaban jiray xeer ilaaliyuhu ka hadli jiray baarlamaanku hortagi jiray ka hadli jiray dadka Soomaaliyeed si macluumaad farsamo oo sharci oo rasmi u helaan safiirkeeni noo joogay midowga Yurub ayaa kamid ah 3 qofood oo dhinaca diblomaasiyadda iyo wakiilka ka isagoo qofka maxaa u yiraahdaa contactiga safaaradda ila soo xiriiraysa 2 qofood la soo xiriiraysa qof kamid ah 3 qofood maanta midna kama joogo xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha xisbiga UPD ayaa nasiib darro ku tilmaamay in muddo xileedka madaxda dawladda oo hadda gabagaba ku dhow in dib loo dhigo mar saddexaad dacwadda dhanka badda ee Soomaaliya iyo Kenya marmarsiyana laga dhigto jiritaanka cudurka coronavirus-ka waa ka xumahay inaan wadana mar kale in wixii aan sanadkii 2017 bilowgiisa aan ka hadalno maanta haddana meeshooda ayagu joogaan ka maanta inaan farxadno naaloonno dabaal degno dhulkeena waa helnay aan dhahno maxaan ku yiraahdaa saasay xukunkii saasoo u dhacay aan dhahnay ahay laakiin maanta inaan dhahno dibaa loo dhigay sanad maxaa soo kordhay 10 bilood hadda ka bacdi ah oo imaanaya waa maxay ya dawladda oo xilligeeda hadda sii dhacaayo ma baqdin iyo ka cararid oo runta ka cararid miya dib iga dhig hadhow cidii kale hadda ka horana waa ka hadlay dawladuhu mas'uuliyadda qarannimo oo saaran iyo mas'uul qofka madaxda ah iyo dawladdu waxay tahay dadka ka dambeeya in aanay dhibaato u abuurin xukunka qofka uga dambeynayso iyo dawladda ka dambeynayso inaanan qodxa jidka loo sii dhigdhigin oo balaayo laga shaqeyn qodxa dhigdhigid miya tan marka maarso 2021 dawlad kale lacal haday timaado ha ku dhibtooto miya dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dacwadda dhanka badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo mar saddexaad maxkamadda ICJ ay dib u dhigtay waxaana dawladda Soomaaliya ay sheegtay in mar kastaba ay ku qanacsaneed in xilligeedii la qorsheeyay in dacwadda lagu qaado laakiin hadda ay u hoggaansan tahay amarka ka soo baxay maxkamadda ICJ sidaasi waxaa saxaafadda u sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Qadar Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okay TV Universal magaalada